kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka Fagaare Production qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah musharaxiinta mucaaradka oo wajahaya eedeemo culus xilli laga cabsi qabo in maxkamad la soo taago madaxtooyada Soomaaliya oo war ka soo saartay kulan maanta Villa Soomaaliya ku dhex maray madaxweyne Farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada qaarkood Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo si kulul u weeraray musharaxiinta mucaaradka oo uu ka tirsan yahay khilaaf soo kala dhexgalay ayaan xogo idinkaga heynaa awoodda qarsoon Axmed Madoobe iyo dagaalkiisa Villa Soomaaliya xogo ayaan idinkaga haynaa dawladda federaalka Soomaaliya oo jawaab adag siisay Imaaraadka Carabta xilli shalay ay u gaftay qarannimada Soomaaliya wararka caalamkana waxaan idin hayaa Trump oo madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi ku qasbay inuu la raaco diyaaradda Air Force One qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan wararka caawa ee Fagaare Production warkii oo faahfaahsan warar aan hadda helayno waxay sheegayaan in dawladda federaalka Soomaaliya ay dacwad degdeg ah ku soo oogayso musharaxiinta mucaaradka oo magaalada Muqdisho ka wada abaabul xoogan iyo kicin dadweyne xeerlaaliyaha guud ee qaranka Suleymaan Maxamed Maxamuud ayaa dacwad ku soo oogaya musharaxiinta mucaaradka isagoo ku eedeynaya inay abuureen qalqalgelin amniga magaalada Muqdisho iyo jabinta awaamirtii dawladda ee isu imaatinka dadka ee COVID-19 dacwadda xeerlaalinta ayaa loo gudbin doonaa musharaxiinta mucaaradka iyo maxkamadda markii ay ka dhaga adeegaanna inay tagaan maxkamadda waxaa amar la siinayaa booliiska si ay u soo qabqabtaan eedeysanayaasha ee madaxweynayaashii hore ee dalka ay ku jiraan iyo musharaxiinta kale ee mucaaradka dawladda Soomaaliya ayaa ku eedeynaysa mucaaradka inay shacabka kicinayaan isla markaana amniga Muqdisho ay qalqalgelinayaan maadaama banaanbaxyo iyo waxyaabo aan loo joogin ay dalka ka wadaan madaxweyne Farmaajo ayaa jimcihii awood u adeegsaday musharaxiinta mucaaradka isagoona joojiyay banaanbax ay rabeen inay ku qabtaan taalada diljirka daasoon ee magaalada Muqdisho xaaladda Muqdisho ayaa haatan ah mid degan waxaana Muqdisho ka socda abaabulka ah in dacwad lagu soo oogo musharaxiinta mucaaradka madaxtooyada Soomaaliya ayaa warmurtiyeed ka soo saartay shirkii uu maanta gudoomiyay madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaasoo ay ka qayb galeen madaxda dawlad goboleedyada Galmudug Hirshabeelle Koonfur Galbeed iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir shirka ayaa sidoo kale waxaa qayb ka ahaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble waxaana goobjoog ka ahaa wakiilada beesha caalamka oo uu hogaaminayo ergeyga qaramada midoobay ee Soomaaliya James Iswan waxaana looga hadlay ismarwaaga doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa gudoomiyay kulan hordhac u ah shirka wadatashiga qaran ee ku saabsan dhaqangelinta tala soo jeedintii guddiga farsamada ee arrimaha doorashooyinka federaalka ayaa lagu yiri qoraalka Villa Soomaaliya sidoo kale waxaa qoraalka ka soo baxay Villa Soomaaliya lagu sheegay in shirkaasi diiradda lagu saaray xal u helidda caqabadaha soo wajahay fulinta heshiiskii 17 September ayada oo la isku raacay in tala soo jeedintii guddiga ay soo afjartay kala aragti duwanaashihii ku aadanaa dhaqangelinta heshiiskii doorashada taasi oo ka turjumaysa hor u socodka ee dimuqraadiyadda dalkeena madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xusay dadaaladii heer federaal iyo heer dawlad goboleed ee loo qaaday horumarinta dawladnimada adkeynta midnimada shacabka Soomaaliyeed iyo xaqiijinta xasiloonida siyaasadeed iyo amni ee dalka ayaa ugu dambeyntii lagu yiri qoraalka ka soo baxay Villa Soomaaliya shirka maanta ayaa waxa uu hordhac u yahay kulankii uu horay u cilaamiyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaasi oo uu isugu yeeray madaxda dawladda kuwa maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir isla markaana ku taariikhaysnaa 18 ilaa 19 bishan Febraayo waxa wili dalka ka taagan xiisada ka dhalatay doorashada gaar ahaan caasimadda oo ay si weyn isugu hayaan madaxda dawladda iyo musharaxiinta mucaaradka ee u tartamaysa xilka madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland ayaa war ka soo saaray sababta aysan uga soo qaybgelin shirka Muqdisho ee madaxweyne Farmaajo uu cilaamiyay dhawaan madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa shuruud adag ku xiray inuu ka soo qayb galo shirka waxaana 5 qodob ee shuruuda ay ku adkaan doontaan madaxweyne Farmaajo inuu fuliyo shuruudaha waxaa ku jira in Villa Soomaaliya ay ka dhex baxdo arinta doorashada iyo howlaha ku saabsan sidoo kale waxaa ku jira in laga garaabo oo la raali geliyo dhinacyada mucaaradka ee la weeraray habeen ka hor Jubbaland ayaa sidoo kale shuruudaha ay soo jeedisay waxaa ku jira in la damaanad qaado shirka meesha uu ka dhacayo amnigeeda isla markaana la dhaqangeliyo lana saxiixo wixii ka soo baxa waxa ayna dalbatay in beesha caalamka ay qaado amniga haddii uu xumaado mas'uuliyadiisa meesha shirka ka dhacayo dawladda Soomaaliya ayaa horay ugu eedeysay xukuumadda Nairobi inay faragelin ku hayso arrimaha gudaha isla markaana ay Jubbaland si gaar ah isha ugu hayso Axmed Madoobe ayaa ka sheegay shirkii Garoowe ka dhacay bila ka hor inaysan jirin eeda ah in Kenya ay amar ku siisay go'aanada uu gaarayo
ka maamul ahaan isagoona sheegay in wax xiriir gaar ah uusan kala dhexinin dowladda Kenya. siyaasad ahaan dadka wax ka qora arrimaha Soomaaliya ayaa walaac ka muujinaya isjiidjiidka si kala fogaanshiyaha ee Jubbaland iyo dowladda dhexe isla markaana buuda gaar ah u tuman iyaduna ay tahay hooyada federaalka Soomaaliya Puntland. awood Axmed Madoobe ee ka baxsan Kenya uu adeegsanayo ayaa la isweydiinaya xilli dowladda ay markasta caqabad kala kulmayso labada maamul ee Jubbaland iyo Puntland wax kasta oo la soo saarana diidma qayaxan ka keenaya. hogaamiyaha xisbiga wadajir ee mucaaradka Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa ka hor yimid in musharaxiinta mucaaradka ay la kulmaan madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle iyo Galmudug Cali Guudlaabe iyo Axmed Cabdi Kaariyo Qorqor. Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sheegay in kulankaasi uu ahaa mid aan habboonayn xilli aan la ogeyn mowqifkooda ku aadan weerarkii uu madaxweyne Farmaajo ku qaaday shacabka iyo siyaasiyiintii ay matalayeen labadaasi madaxweyne goboleed. hogaamiyaha xisbiga wadajir oo ka mid ahaa siyaasiyiintii lagu rasaaseeyay wadada aada garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde iyagoo dhigaya dibadbax ayaa wax aan suurtagal ahayn ku tilmaamay in shir doorasho lala galo ninkii weeraray hotel ay laba madaxweyne iyo gudoomiye baarlamaan hore degan yihiin. qoraalkan uu hogaamiyaha soo dhigay bartiisa Facebook wuxuu ku sheegay in loo baahan yahay waqtigan in kaligii taliska laga badbaadiyo dalka oo uu ula jeedo madaxweyne Farmaajo. waxaan marna maangal ahayn in shir doorasho lala galo ninkii weeraray hotel iyo laba madaxweyne ay deganaayeen. ma habboonayn in lala kulmo Cali Guudlaabe iyo Qorqor oo kala hogaamiye Galmudug iyo Hirshabeelle iyagoo aan cadeen mowqifka ay ka taagan yihiin weerarkii uu madaxweyne Farmaajo ku qaaday shacabka iyo siyaasiyiinta ay deegaanadooda matalayeen. mana aha in ay u keysinayaan in xaalku caadi yahay lana camiro shirka Farmaajo. waa xadgudub kale in Muqdisho oo aan dibadbax nabadeed ka dhici karin la yiraahdo ninkii shacabkeedii iyo raggii la tartami lahaa weeraray ayaa doorasho lagala xaajoonaya. wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube oo shir jiraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa si adag uga hadlay warqad dhawaan ka soo baxday dowladda isu taga Imaaraadka Carabta oo looga hadlay rabshadihii Muqdisho iyo doorashooyinka dalka. wasiir Dube ayaa marka hore shaaca ka qaaday in dowladda federaalka ay dhambaale kala duwan oo hambalyeyn ah ka heshay wadamada caalamka gaar ahaan kuwa Carabta wuxuuna tilmaamay inay ku bogaadiyeen dowladda sida ay uga hortagtay maleeshiyad uu sheegay inay Muqdisho uga dhawaaqeen in dalka uusan dowlad lahayn. waraaqahaasi waxay naga soo gaarayaan wadamo badan oo aynu saaxiibanahay gaar ahaan wadamada Carabta oo markii ay maqleen caasimadii dhexdeeda oo laga leeyahay dowlad kama jirto aad u walwalay. xalay ayay wasaaraddeena arrimaha dibadda soo saartay warqad faahfaahsan oo ay ku soo dhaweynayaan talooyinka ka yimid saaxiibada caalamka kuna baalmarinayaan sida ay wax u dhaceen ayuu yiri wasiir Dube. sidoo kale wuxuu tilmaamay in warqadahaasi ay ku dhex jirtay warqad ka timid Imaaraadka oo midab kala lahayd isla markaana Soomaaliya oo keysiinayso dal madow. halkan waxaan idinku yeeray in shacabka Soomaaliyeed aynu u sheegno aadna la wadaagtaan in warqadahaasi ay ku dhex jirtay warqad midab kala leh oo mustaqbalka dalkeena oo keysiinaysay mid madow ayuu yiri wasiir Dube. wuxuu intaasi ku daray warqadda Imaaraadka waxaa ka muuqday in aysan aqoonsanayn dowladnimada Soomaaliya oo ay dowladda inkirayaan taasi oo abuuraysa in hadalkii halkan laga lahaa maalin dhoweeto ee dowlad dalka kama jirto iyo warqadda dowladda Imaaraadka ka timid inay isla socdaan. wasiirka warfaafinta Soomaaliya oo hadalkiisa sii wata ayaa shaaca ka qaaday in dowladda Imaaraadka Carabta ay rabto in Soomaaliya ay noqoto sida dalalka Yemen iyo Liibiya oo kale. dhinaca kale wasiir Dube ayaa sheegay in Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta ay ahaayeen laba dal oo leh taariikh fog iyo saaxiibtinimo ku dhisan walaalnimo balse wuxuu hoosta ka xariiqay in haatan madaxda Imaaraadka Carabta gaar ahaan kuwa arrimaha dibadda ay xub siibteen inay dhaawacaan iskaashiga iyo xiriirka labada dowladood iyo labada shacab. wali waxaad daawanaysaan wararka caasimadda TV markana caalamka. kulamadii dhexmaray madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa ahaa kuwa soo jiitay indhaha caalamka balse xogo dheeraad ah oo aan horey loo ogeyn ayaa soo baxaya kadib baaritaan la sameeyay. markii shirkii labaad ee labada hogaamiye ku dhexmaray dalka Vietnam uu burburay ayaa sida la sheegay Trump uu Kim Jong Un ku yiri inakeen aniga ayaa diyaaradda kugu qaadaya oo dalkaaga ku galbinaya sida dad u dhow Trump ay xaqiijiyeen. maadaama uu Trump ka warahayay in Kim Jong Un uu Hanoi ku yimid safar tareena oo maalmo qaatay ayuu ku yiri inakeen aniga ayaa 2 saacadood kugu geenaya dalkaaga ayuu yiri Mr. Matthew. sida uu sheegay la taliyay hore ee amniga John Bolton Trump waxa uu u haystay inuu helay saaxiib dhab ah isaga oo xitaa mar ogolaaday in Kim Jong Un la joojiyo carbiska ciidanka ee Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed. waana inta warkii aad ka daawanayseen Fagaare Production waad ku mahadsantihiin daawashada warkeena
inta ku kulmi doono warkan kiisa xiga nabadgelyo.